بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتهن أصحابي في عنتهن الحمد لله أنا هو في عنهاي ما شاء الله تبارك الله. إذا كان سوق لين رجينا يا عافمات تامة إلهي ما عرفت عافمات تامة هنسي من غير عبادة صوبا أنت جرنا الله عافيه. أنت سكدب ما أنت حقرا عدنا وسمينا سجبل إذا حتر هو يا ناس حقرا عدك صوتورا يوم لو حندواي أما بانكوت marka ayadaan uga fadhinaa saaka quraacda inay noo soo diyaarisa gabadheyda. ilaahay awlaadi inta haysan ilaahay awlaad ha siiyo. ilaahay waxaan ka baraa awlaadi inuu noo xafido caafimaad taama noo siiyo allahumma aamiin. intaas kadib asxaabey waxaan karsanayaa qadadeedii isbuuclaha ahayd. waxaan karsanayaa suugadii, waxaan karsanayaa bariiska insha allahu kariim. suugadan daacanayaa, bariiskan karsanayaa, kadibna talaajadan kashanayaa subaxii maadaama aanay guriga ka laho qadadeeda quraacdeedana hore u qaato waxaygaan isku diyaarsanayaa. marka ilmaha maasha allah iskuulka ayay maaragta ka cunaan qada fiican marmar oo la karinaa jirto oo qadada maaragta ay iska xun tahay. waxay sameeyaan marka lacagay haystaan markay ka gaaraan waxay soo gataan jibsi iyo cabitaan iyo waxaasay soo gataan. hadday ka gaari waayaan waxaa waa gurigooda yimaadaan suugadooda u karsan bariiskooda u karsan bariiskooda kuleysanayaan maaragtay baastadooda dabka ku tuuranayaan maasha allah tabaarakallah. maaragtay shidnigoodii u yaalo waxaan ku leeyahay basas cagaaran u tumaaya mooskooda liintooda waxooda inay u taalo waxaa waa tartiibkooda iyagoo dhargana imaanaya. ani galabkii waxaa imaadaa adiga 10 saac iyo bar ama 5 iyo barka ayaga ay kasoo hormaro oo imaado mataqaanaa 4 galabnimo ama 10 saac galabnimo. marka ayagoo mashquulsan oo casharada ku mashquulsan oo u imaadaa jikada anigana ma geli kariyo waa daalanahay. ayagana waa kaasaasay u daalan yihiin casharka shaqeysay bahayaan soo maaha. caawadiya ku soo hartay ceeshkooda u yaalo, rootiga oo hambeegarka u yaalo, waxa u yaalo rootiga ismariska ah u yaalo, caanahooda shaahigooda waxooda maaragtay cunaan noo mashquul dhamma jiro. waxaa ku leeyahay cabaara la soo jeediyay waa la kadibna waa la iska seexanayaa subaxii haddana la kala meesheeda ka bilaaway maaha. marka alxamdulillaah ilaahay waxaan ka baryaa inta haystan subxaanahu wa ta'aala inuu siiyo anagana ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu siyaadiyo noo barakeeyo allahumma aamiin. marka saxaabteyda quruxda badan oo sharafta badan leh oo subscribe maaragtay iyo leega ii saartay ina share gareysay aad u mahadsantihiin. kuwa oo maaragtay ugu soo biira saxaabteyda cusub ugu soo biirto waxaan leeyahay soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada walaaltinimo ku soo dhawaada waadna mahadsantihiin. marka asxaabey marka waxaa la yiri dadaala wuu gaaraa insha allahu kariim. intaan rabay in ka badan waan gaari doonaa. ilaahay baa igaarsiin doona idinka igaarsiin doontiin asxaabta quruxda badan leh. marka waxaan leeyahay mahadcelintiin kama daala aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan leeyahay haddii aad ka heshaan subscribe ii saara, like ii saara, ina share gareeya videogayga haddaad fiirsataan. waxaan ka codsanayaa inaa aad dhamaysataan aniga waxbay ii tareysaaya inaad dhamaysataan. mahadsanidin daawasho wacan. أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن
شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة أنعم شكرا أفخر بأني مسلم شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا فإذا وعى القرآن حين لانا اقرأ أخيا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعد في روحه إنسانا هو تائه متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيرانا ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان وأزل هوانا ظل يلزمنا وقل ما من لزم الهدى مانا كن كالصحابة في اقتداء المصطفى كانوا لهامات الدنا تيجانا نهلوا من القرآن أعذب مورد أخلاقهم كانت هي القرآن أخلاقهم كانت هي القرآن اقرأ أخيا ورتل القرآن
اسمح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ أخينا اقرأ أخينا اقرأ أخينا ورتل القرآن رتل فإن الكون نحوك شاخص فامنح له مما تجود أمانا رتل فإن قلوبنا مشتاقة وازرع بصوتك في الجنان جنانا وسر نهضتنا وسر وجودنا من غيره ما أشرقت دنيانا يا أمة